degmada hodan gabar leeyahay hodan ayaa isaaqayd aan u leeyahay habar jecel inay tahay habar jecel ayaa lagu magacdaray in gabar teel ku lahayn jirtay Masaariya Maqdis la dhigi jiray Muqdishodan ku timid magaca Muqdisho waxa bixiyay Suldaankii Hiraab waxaanu u diyaar garoobaynaa hadda oo waliba aad subax hore u ah inaynu markaas u baxno barnaamij aynu xalay raadintiisa maalmaha hore dhan maskaxda ka dhex guuxay xalana aan ku seexanay in haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu raali ka noqdo aroorta hore aan barnaamijka soo qabano dharaar qurxoon saaxiibayaal waa xilli hore oo aroor ah saaka waxaynu halkan u soo istaagnay inaynu magaalada gallo oo ka raadino mid ka mid ah su'aalaha xalay aan ka seexan weynay waayahan oo dhan aan isweydiinay oo ah war magaca magaalada Muqdisho halkee uu ka yimid magacaas iyo su'aalo kale oo ku lamaansan oo ay ka mid tahay xamar iyo Muqdisho yaa weyn ayaynu raadi doonaa daawasho wanaagsan magaalada ay hadda dhex galnay waxaynu raadinaynaa dad bal aan ka helno wax yar oo taariikhda magaalada Muqdisho iyo magacan halka uu ka yimid kamid ah dad badan ayaan helay oo reer banaandirigii hore ah waxay ka codwadaateen in kaamiradu ay qabato ayagoo markaas ina siiyay taariikh badan oo magaalada Muqdisho ay leedahay taariikhaha magaalada Muqdisho ma aan kuwa maalin iyo 2 toon lagu soo koobi karo balse hadafkeen waxa jawaab helida su'aalaha waxaan tahay halka uu ka yimid magaca magaalada Muqdisho waxaan afkaarahooda ku aadan bixida magacan su'aalay dad aan ku tuhmeynay in waxuna ay ka maqaleen ama waxuna ay ka akhriyeen bixida magaca magaalada Muqdisho waxaan jeclahay qoraal akhrin ku sameynay waxa laga qoray magacani waxaanu afkaarahooda soo ururnay dad aynu ku tuhmeynay in garaadka bulshada kuwaas oo badi kaamirada naga diiday waxa dadkaas aan la fariisanay ee kaamiradu ay saqawan ay badi isku raaceen in bixida magaca magaalada Muqdisho uu yahay laba eray oo Carabi iyo Farisi kala ah oo markii la soo noqonaya magacad shaah ereyga hore ee magacad ayaa waxa asalkiisa lagu sheegay inuu yahay erey Carabi ah oo la macno ah meel la fariisto ama kursi ereyga labaad ee shaah ayaa isla ah asalkiisa Farisi luqadda Carabiga waxa uu ku noqonayaa marka la fariyo boqor waxa kale oo isla ereygan shaah afka Masaarida hore ku noqonaya Fircoon kadib isbedelo badan oo dhanka afafka ah oo ku dhacay magacaan magacad ayaa waxa badil la soo xiganaya in ay noqotay magaca magaalada Muqdisho ee hadda aynu naqaano afkaarahooda aynu aragno qayb ka mid ah garaadka bulshada ee kaamirada ay qabatay waxaynu waayahan ku guda jirnay raadinta taariikhda magaalada Muqdisho iyo magaca magaalada Muqdisho halka uu ka yimid Maxamuud Axmed Faarax ayaa maanta martiin uga ah barnaamijkan ee qaybtiisa wareysiga Maxamuud soo dhawow su'aalo dhowr ayaynu ku weydiin doonaa ay ka mid tahay magaca magaalada Muqdisho halkee ayuu ka yimid Maxamuud soo dhawow magaca magaalada Muqdisho halkee ayuu ka yimid yaa sabixiyay إذا كل تاريخ المقدسة هو تاريخ فوق وتاريخ وقت دير وقع لكن إنسان مغلي يعني نتا عن مغلي يعني تاريخ ده نقول بده وحوي سجوا مركز روري ومغلي بوشجع وحن مغلي إن جبر تل كل هنجرتي مصارية مقدس اللي دي جري مقدسة كتمد جبر مصاري مقعد كلمة ومقعد كلمة وجبر أيه هاد مقدس بالونه جري مصاري أيه هاي meel xeebta oo magaalada markaa magaalada sidaan hadda duurka u soo jirtay bada qarkeeda ay hotelka u lahayd Maqdiskaas ee Muqdisho ku baxday saan maqlay wallahi mardu ma ahan kullayba waxaan u malaynayaa adoo muddo 800 iyo wixii kor ka jira way qarniyo way maaday kumba iyo waxa haynba xamar iyo Muqdisho يا ده أهان وين لباس مجا مركز كبر بدرجه ده أهان يا وين حمر باوين حمر وقبيل صومالي ده كم يدعي حيد حمر رأس مالا اللي هذا ديجان بيمشوا كهايان قبيل كسرة هذا قبيل بدن صومالي ده بقرطوية كهاي وبوينا بها هذا سيد بقرطوية دي أجوران كخرا تدك هذا ما ينور تيجي كم يديهين حمر رأس مالي قاس هذا غير كفرت صومالي ده تاريخ الإسلام كهاي دبرة اللي هذا كدم بيا راركار ما واجران دينسور iyo gobolkan bay way wax ka degaano dabarra reer la yiraahdo xamar Soomaaligaas reer kale oo reer ku dhex jirjiro ayaa ka dambeeyo marka reerkaas ay degay jiray taariikhda isaan ku maqlay ay ahayeen dadkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degay jiray
taariikh ahaanta intaad adigu og tahay ama aad maqashayba dadka ugu horeeya muqdisho degay jiray horta dadka meesha deegaan ay dadku Soomaali leeyihiin bay ahayd Soomaalidu inta badan waxa leeyahay hadday timid waqti dhow Itoobiya ka timid waqti dhow Itoobiya ka soo guurtay waxaas wax jira ma aha dadku meel ay lahayn dama yeeshaan gumeysi baan haystay taariikhdeena lama qori jirin dadkuna de xoololey bay haayeen oo qiimaha iskaga jireen inta badan laakiin Soomaalidu way waqti fog bay jirtaa halkan ay ku jirtaa marka nimanka la yiraahdo xamarra Soomaaliga xilliga ay deganayeen hadda waxaan u maleynaa 1200 iyo 1300 in laga joogo meelahaas magaalada Muqdisho degmooyin badan bay maanta leedahay waa degmadii koobaad ee ka asaasatay maadaama magaalooyinku markii waaweyn yihiin ay leeyihiin meel xudun u ah ay ka asaasmaan anigu taariikhda san ku hayo degmada Cabdicasiis way ahayd way magaalada meeshan yar ee hadda Cabdicasiis ka sokeysay meesha hadda dekada weyn ee ka soo bilaabatan halkaas ay ku yeekan jirtay san wada taariikhdeeda wixii ka sokeeyo baadiyo geel uu raacday ee ariga magaalada marxalada fara badan bay soo kala martay marba 50 sano qolo ku hareereysneed oo meesha lagu dagaalamayo Arab iyo dad Soomaali iyo dad Aasiyada ka yimid Islaamka ku dagaalamayo hareereysneed Henry lin la jiro baadiriyaha dadku meesha ka dagaalamay jireen qabaa'ilkan hadda maanta daga oo u badan sida hawiyaha iyo qabaa'ilada kale ee ayagu ay heeb wadaaga hoose yihiin waa maalin kale oo aynu ku jirno raadinta taariikhda magaalada Muqdisho waxaana la joogaa mid ka mid ah dadka garaadka iyo da'da iyo taariikhaha iyo waliba waxyaabo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho aynu ku tabayno suldaanka dadka Soomaaliyeed Suldaan Gargaduud Suldaan soo dhawow waxaan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka magaalada Muqdisho iyo taariikhdeeda halka magacaan ka baxay su'aalo kooban aan ku weydiin doonaa bal Suldaan soo dhawow sidoo ku baxay magaca magaalada Muqdisho yaa sabixiyay magaca Muqdisho waxa bixiyay Suldaankii Hiraab ayaa bixiyay Muqdisho uu bixiyay magaca waa Soomaali xamar iyo Muqdisho yaa weyn labadaas magac xamar iyo Muqdisho waxa weyn mataqaana Muqdisho weyn Suldaankii Hiraab bixiyay xamarna waxa bixiyay Reermataan Cabdulla galmaha bixiyay xamar dadkii ugu horeeyay ee magaalada Muqdisho degay waxay ahaayeen galmaha waa jifi kamid ah abgal teebay ahayd degmadii ugu horeysay ee magaalada Muqdisho ka bilaabtay maadaama magaalooyinka weyn ay degmooyin ka bilowdaan baldemas teebay ahayd degmadii ugu weyneed waxay ahayd degmada Xamar Jajab waxa ku xigay degmada Xamar Weyne waxa ku xigay mataqaana Shangaani Cabdilcasiis afartaas ugu weyneed markii dambana isaaqa mataqaana Israaci ayaa waxa yimid isaaq soo galeen magaalada degmada Hodan gabar leeyahay Hodan ayaa isaaq ahayd waxaan u habar jeclaynayd habar jeclo ayaa lagu magacdaray Muqdisho ma muuqaydisha waa fasirka uu qof kasta garan karo ee ereygan ama magacan hadda ee Muqdisho muuqaydisha qof kasta ayaa garan kara magacan hadda si waxay waayahan oo dhan aynu ku mashquulsaneen raadinta bixidda magacani anagoo adeegsanayna akhrinta buugaagta kala duwan ee wax un ka sheegaya taariikhda magaalada Muqdisho raadinta dadka garaadka leh ee wax un ka og bixidda magaca Muqdisho iyo soo dhagaynta bulshada magaalada Muqdisho abkii iyo isirkii hore taariikhaha ay ka dhaxleen bulsho badan oo afkaarahooda aynu weydiinay ku aadan bixidda magacani magaalada Muqdisho ayagoo kaamarada aan soo hor istaagin ayaa inoo sheegay in magacani uu ka yimaaday sida hore aan soo sheegnaba maqcad shaah oo kala ahayd maqcad oo ah goob la fariisto iyo shaah waxaana badi sababta inoo sheegeen ay ku baxday maqcad shaah inay tahay goobtii shaaha lagu cabi jiray dadka ayaa badi saas dhahaya bal daawada adigu hataa tahay akhristay aqoonyahan ama se qof waxun taariikhda magaalada Muqdisho ka akhriyay inuu wada qaybta faalada halka uu ka yimid bixidda magaca magaalada Muqdisho Maxamed Faarax Jaamac Muqdisho